galbeedka magaalada Kismaayo ayaa waxaa maalmahan ka dhacayay dagaal u dhaxeeya laba beelood oo isku haysta dhul 25 kiiloomitir galbeed kaga toosan magaalada Kismaayo. 5 qof ayaa la sheegay in lagu dilay saakay dagaal ka dhacay iyadoo tirada guud ee dagaaladan ku dhimatayna ay gaarayso 8 qof. wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa la socday wararka dagaaladan wuxuuna u waramay wariyaha VOA-da Maxamed Bashiir. arrintan xiisadaha colaadeed ee u dhaxeeya labada beelood waxa ay soo bilaabatay 3 sano ka hor waxaana inta badan colaadahan ay salka ku hayaan muran ka taagan dhul ay isku hayaan labada beel oo ku yaala galbeedka magaalada Kismaayo. deegaankan waxaa lagu magacaabaa deegaanka Dalsan waxa uu 25 kiiloomitir oo dhanka galbeed ka xiga garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. laakiin 5 qof ee saaka ku dhimatay dagaal beeleedka ka dhacay nawaaxiga deegaanka Dalsan gaar ahaan halka lagu magacaabo Haadweyne oo ah goob ceel biyood laga qoday oo markii horeba muranka u dhaxeeya beelaha ku dagaalamaya galbeedka magaalada Kismaayo uu ka bilowday ayuu ka dhashay marka 5 qof lagu dilay dagaalka ka dhacay saaka. marka maalmihii la soo dhaafay isku dhacyo kala duwan ayaa ka dhacay galbeedka Kismaayo oo u dhaxeeyo laba beelood oo isku deegaan ah. marka guud ahaan goob joogayaal ku sugan magaalada Kismaayo iyo galbeedka magaalada Kismaayo oo aan xiriiro kala duwan la sameeyay waxa ay sheegeen in ilaa 8 ruux ay ku dhinteen isku dhacyadii ugu dambeeyay ee beelahan ku dhaxmarayay nawaaxiga deegaanka Dalsan ee galbeedka kaga beegan magaalada Kismaayo. isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo oo aan la xiriiray waxaa la keenay maanta ilaa 5 ruux oo ku soo geeriyootay dagaal labadan beelood ku dhaxmaray 24 saac ee la soo dhaafay nawaaxiga deegaanka Geedweyne ilaa iyo Dalsan. marka waxaa socda isku dadaalo la doonayo in lagu dhaxgalo labadan beelood ee ku dagaalamaya galbeedka Kismaayo oo ay wadaan mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland odayaashii deegaanka Jubbaland iyo culimadaba. marka Bashiir marka la isku dardaro jubbooyinka kale marka laga hadlayo waxay ka mid tahay goobaha inta badan colaadaha sokeeye ay aad ugu soo noqnoqdaan ee ka tirsan dalka 30 sano ee la soo dhaafay ay beeluhu ku wada dagaalamayeen arrimo la xiriira muranka dhulalka. marka haddaad la xiriirtay dhinacyada isku haya ee dagaalkan ama mas'uuliyiinta labada dhinac maxay leeyihiin ilaa haatan dadaalada socda? magaalada Kismaayo waxaa la xaqiijiyay in ay ka baxeen saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland iyo odayaal dhaqameedyo doonayo inay qaboojiyaan colaadda labadan beel ku dhaxmarayso galbeedka magaalada Kismaayo gaar ahaan nawaaxiga deegaanka Dalsan. laakiin ma jirto ilaa hadda si rasmi ah mas'uul ka tirsan Jubbaland oo ka hadlay laakiin waxaa socota dadaalo la doonayo in lagu qaboojiyo colaadan labada beelood ee walaalaha ku dhaxmarayso galbeedka gobolka Jubbada Hoose. Qadar Maxamuud Xareed oo jooga magaalada Nairobi ayuu ahaa wuxuu u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo jooga Washington.